ha isbarbar dhigin aw qofkaad adiga tahay faraxsanow kuna noolow noloshaada dhabta ah waxaa jira sabab uu Ilaahay kaaga dhigay sida aad tahay ku siiyay wax aad haysato naftaada ha barbar dhigan naf kale mushaarkaaga mid kale gaarigaaga gaari kale moobilkaaga mid kale gurigaaga guri kale carruurtaada carruur kale jooji isbarbar dhiga bilow noloshaada waxaan waa markaas in aad noqonaysid qof ku raaxaysan noloshiisa uguna farxad badan midna ogow waxa ugu adag adduunka waa inaad isku daydo inaad noqoto qof kale oo aadan ahayn dadka qaar ayaa u dhimanaya inay dhuubtaan si ay ugu ekaadaan kuwa modelka ah qaar kale ayaa jecel in miisaan u kordho oo buurtaan dad badan ma garanayaan wax ay sameynayaan kaliya waxay ka arkeen cid kale oo sameynaysa waxaa la jooga waqtiga aad joojin lahayd arrinta kuna farxi lahayd sida aad tahay iyo waxa aad haysato isbarbar dhig waa cudur waxay waxyeeleynaysaa xiriirka kala dhexeeya naftaada kan dadka kale iyo midka ugu muhiimsan xiriirka Ilaahay waxay ka dhigaysaa mid aan ku mahad celin nimcada Ilaahay siiyay aamin waxa ugu fudud adduunka aad samaysan karto waa inaad qofka tahay ahaatid faraxsanow kuna noolow noloshaada dhabta ah waxaa jira sabab uu Ilaahay kaaga dhigay sida aad tahay ku siiyay wax aad haysato maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa suuqa aaday wiil aabihiis iyo dameer ay rabeen inay suuqa u iibgeeyaan iyaga oo lugeynaya ayaa waxaa ka hor imaaday laba qof maxaad u lugeynaysaan idinka oo dameer wata maad raacdiin sidaas ayay ku dhaheen duqi ayaa wiilkiisa ku yiri bal adigu fariiso oo dameerka wad aabo cambaan markii ay socdeen kadib ayay waxay arkeen haweeney ku calaacalaysa ceeb badana wiilku asaga ayaa dameerka wadaya aabihiina uu lugeynaya sida darteed wiilkii dameerka ayuu ka degay duqi ayaana raacay dameerkii mar kale ayay wadada qof ku arkeen miskiin waa maxay duqa aan naxariis lahayn wiilkiisa ayaa lugeynaya isagana dameerka ayuu wadaa qof ayaa sidaa ku yiri markaan labadoodii ayaa raacay dameerkii qof kale ayay wadada dhexdeeda ku arkeen xaasisana waxay rabaan inay dameerka miskiinka ah dilaan sida ayuu qofkii kalena ku yiri markii hadalka maqleen ayay labadoodiiba dameerkii ka degeen waxayna go'aansadeen inay labadoodiiba lugeeyaan iyaga oo dameerka wada suuqii markii ay soo galeen ayaa dadka oo dhan la yaabeen oo ay ku sheekaysanayaan dameer bay wadaan labadooda midnimo fuulin bal fiiri aabaha iyo wiilkiisu sida ay dadka mar walba ugu hadlayaan haddaba waa in aad ku dhaqaaqdo oo aad samayso waxa aad rabto dan kugu jirto waafaqsan diinta adiga oo aan cid kale ku raali gelin dadka oo dhan ma qanci kartid xitaa haddii aad tahay midka ugu wanaagsan sababtoo ah dadka maanta adduunka jooga markii aad isdhahdid caawi waxay u qaadanayaan in aad status yahay laga sheego ka wado markii aad rabto in aad kaligaaga ahaato waxay u qaadanayaan in ay murugo ku hayso markii aad ku wanaag samayso way iska inatirayaan laakiin markii aad hal qalad samayso waxay wadayaan intaas oo sano markii aad hadal dabacsan ku hadasho waxay u qaadanayaan in aad tahay daciif markii aad bilowdo in aad dantaada garato waxay u qaadanayaan in aad dadka ka go'day oo buufis kugu bilowday dadka mar walba way hadlayaan marna marali gelin kartid si kasta oo ay tahay si kasta oo ay ku xugmiyaan wax kasta ay ku qaataan adiga ha joojin ee joogtay wanaag samaynta iyo in aad u dhool cadayso salaanto xushmayso u naxariisato soo dhaweyso cafiso caawiso hadallada dadka Ilaahay wuxuu leeyahay yeysan ku walbahaar gelin hadalkoodu sababtoo ah dadka way hadlayaan waxayna ka hadlayaan wax qosay iyo wax aan qosayninba dadka hadalkooda waxaa ka mid ah hadal wanaagsan oo dhiirigelin leh iyo mid aan wanaagsanayn oo abuuri kara dhibaatooyin qofka guul darayse waa qofka isku dhiiba hadalka dadka ee aan awoodin inuu naftiisa difaaco waa in aad samaysaa waxyaabo adiga ku raaxaysanaysid ama ku farxad geliya aanan muhiimad weyn siinin dadka hadalkooda iyo wax ay sameynayaan marka ay bilaabaan inay wax ka sheegaan oo aan wanaagsanayn ka fogow meeshaas iskana ilaaw hadalkooda waxaadna ogaataa qof waliba oo bulshada ka mid ah waxa uu leeyahay hab fikir u gaar ah hadalka alle aan ku dadaalo isaga inoo daawo ah aan ka fogaano hadalka dadka marnaba ha u ogolaanin in uu qofku liido ama uu ku dareensiiyo in aad qiimo lahayn alle wuxuu ku abuuray ujeeddo cad alle ayaana ku karaameeyay Imaam Shaafici waxa uu yiri qof allaala qofkii u maleeyay in uu ka badbaadayo hadalka bini'aadamka wuu waalan yahay Ilaahay ayay wax ka sheegeen Nabi Maxamed cali salaatu wasalaam ayay wax ka sheegeen oo ay yiraahdeen waa sixirlow wuu waalan yahay maxaad u maleynaysaa wixii ka soo haray labadooda dadka hadalkooda waa sida dhagaxaanta ama dhabarka ayaad ku qaadanaysaa oo waad ku jabaysaa ama lugaha hoostooda ayaa kaga dhisanaysaa dabaq sare ku qaada
waadna guulaysanaysaa. Ma joojin kartid hadallada dadka, laakiin ha u ogolaan hadallada dadka in ay adiga ku joojiyaan.